والنحو أولى أولا أن يعلم إذ الكلام دونه لن يفهما. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آل محمد. wuxuu darsigeenu ka bilaabmayaa cinwaanka ah al-afcaal al-khamsatu wa i'raabuha. afcaasha shanta ah iyo i'raabka ay leeyihiin afcaasha shanta ah. al-afcaal al-khamsa, afcaasha shanta ah amba al-amthilatu al-khamsa, tusaalayaasha shanta ah, magacaana waa la yidhaahdaaye. waa ficilka mudaaric ee uu la xidhiidho alif alithnayn, aliftii labada qof sheegaysay, amba waawul jamaaca, wawda sheegaysa jamaacada, kooxda ragga ah, amba yaa almu'anatha almukhaataba, yaada gabadh lagula khitaabayo. saddexdaa mid ka mid ah ficilka mudaaric haddii lagu daro ayaa waxaa la yidhaahdaa al-afcaalu al-khamsa amba al-amthilatu al-khamsa, oo shan qaab ayaa ficilka mudaaric markaa uu ku imanaya. ficilka mudaaric oo aliful ithnayn amba waawul jamaaca ama yaa lmukhaataba aan lagu daba dhajin, ama ha ahaado saxiixu laakhir ama ha ahaado muctalu laakhir, wayn soo aragnay isaga icraabkiisu waa inoo soo horomaray. ficilka mudaaric ee aan lagu daba dhajin aliful ithnayn iyo waawul jamaaca iyo yaa lmukhaataba aan lagu daba dhajin, icraabkooda wayn soo aragnay markuu yahay saxiixu laakhirka iyo marka uu yahay muctalu alaakhirka, iyo ficilka mudaaric marka la bineeyo labada xaaladood ee la bineeyo. waxaasoo dhan wayn kasoo baxnay. hadda waa ficilkii mudaaric oo lagu daba dhajiyey alifta laba qof sheegaysa, ama waawul jamaaca ama yaa lmukhaataba. shan qaabna wuu ku imanayaa, shan qaab buu ku yimaadaa. tusaale ahaan ficilka yadhabu, haddaynu ku daba dhajino alif alithnayn, alifta labada sheegaysa oo la yidhaahdo yadhabaani, aliftaa markayn ku daba dhajino laba qaab buu ficilku ku imanayaayo mar ya lagu bilaabo iyo mar ta lagu bilaabo. yadhabaani tadhabaani, haddii ya lagu bilaabo macnuhu waa labadii qof ee maqnaa way tegayaan, oo labaa laga sheekeynayaa. yadhabaani, labadii hebel way tegayaan, laba qof baa laga sheekeynayaa. marka lagu daba dhajiyo waxa weeyaan aliful ithnayn, ficilkii mudaarice ya-na lagu bilaabo, wuxuu tilmaamayaa waxa weeyaan laba qof oo maqan oo laga hadlayo, laga sheekeynayo. haddii ta lagu daba dhajiyana waa laba qof oo lala hadlayo, ood la sheekeysanayso ood leedahay tadhabaani, labadiina now waa tegaysaan. haddii markaa alif alithnayn lagu daba dhajiyo waa labada qaab baa ka imanaya, labada qaab buu ku yimaadaa, labada xaalo, mar yaa lagu bilaabo martaa lagu bilaabo. haddii waawul jamaaca lagu daba dhajiyana waa saasi leeg, waa mar yaa lagu bilaabo iyo marta lagu bilaabo. yadhabuuna iyo tadhabuuna, oo haddii ya lagu bilaabo wawdaa lagu daba dhajiyey ficilkii mudaaric ya-dana lagu bilaabay, ya-daas waxay tilmaamaysaa koox maqan oo laga hadlayo. yadhabuuna, iyagu way tegayaan. haddii ta lagu daba dhajiyana, haddii waawul jamaacinta lagu daba dhajiyo ta lagu bilaabana oo la yidhaahdo tadhabuuna, waa jamaacayo koox lala hadlayo, idinku waa tegaysaan kooxdiinani. idna labadaa xaaladood ayaa marka ay yeelanaysaa. ficilkii mudaaric oo jamaac lagu daba dhajiyay labadaas qaab ayuu ku imanaya, mar yaa lagu bilaabo martaa lagu bilaabo, waa afar markaa. iyo ficilkii mudaaric oo ya lagu daba dhajiyo markaa ta un baa lagu bilaabaya. tadhabiina, tadhabiina, gabadhi yahay waa tegaysaa. ficilkii mudaaric ya baa lagu daba dhajiyey tadhabiina, ya-daasi waa yaa lmu'anath almukhaataba, waa gabadh lala hadlayo ya-dii tilmaamaysa. markaana xilligaa ta
unbaa lagu bilaabay ya laguma bilaabo oo tadhabiina un baan leenahay yadhabiina ma jirto haddaad doonaysa nin inaad la hadasho ood ficilkaa mudaaricad kula hadasho waa tadhabu adigu waa tegaysaa hal nin markuu yahay hal nin oo maqan hadduu yahayna oo ghaa'iba waa yadhabu oo ficilkii mudaarici markaa caadiga icraabkiisa hore soo dhiganay waa yadhabu ninka maqan ta joogtana qofka joogana tadhabu laakiin gabadh markay tahay kula kaa maqan markaa waa tadhabiina gabadh kula joogta ka waran hal gabadh oo kula joogta markaana waa tadhab markaa hal gabadh oo kula joogta markaad la hadlayso waa tadhabiina hal gabadh oo kula joogta markaad la hadlayso waa tadhabiina hadday kaa maqan tahay ka waran markaa waa tadhabu un zaynabu tadhabu zaynabu way tegaysaa waa qof kaa maqan hal gabadh oo kaa maqan waa tadhabu markaa tadhabu haddii la yidhaahdo waxaa loo isticmaalaa nin kula joogood la hadlayso ama gabadh kaa maqan labadaa macnaba waa loo isticmaalaayo anta tadhabu nin yahow ama zaynabu tadhab zaynabu way tegaysaa almuhim ficilka mudaaric shantaa qaab marka lagu keeno alafcaal lkhamsa la yidhaahdaa yadhabu oo inagaa ka sameynay bal yadribu ka samee maxay noqonaysaa yadribaani tadribaani yadribuuna tadribuuna tadribiina marka alif lagu daba dhajiyo marna ya ku bilow marna ta marka wow lagu daba dhajiyana marna ya ku bilow marna ta ku bilow marka ya lagu daba dhajiyana ta un ku bilow yajlisu bal hadda ka samee yajlisaani tajlisaani yajlisuuna tajlisuuna tajlisiina waa xabadda gaarka xagga kale waa laba isla socda iyo laba isla socda iyo xabad gooniya yakulu ka samee yakulaani ta'kulaani waa alif lithnain yakuluuna ta'kuluuna waaw ljamaaca ta'kuliina tusaalaha sheekhu inoo qoray mashaayikhdu baa ka mid oo alcaamilaani yashtagilaani tashtagilaani yashtagiluuna tashtagiluuna tashtagiliina soo waadix maaha alafcaal alkhamsa waa ka alafcaal alkhamsa kaasaa la yidhahdaa waayahay afcaalu khamsaha icraabkiisu waa maxay afcaalu khamsaha marka la rafcinayo waxaa lagu rafciyaa thubuut annuun nuun la sugayo oo la daynayo alif alithnain gadaashii nuun taala amba waaw ljamaaca gadaashii nuun taala ama ya almukhaataba gadaasheed nuun taala oo la daynayo ayaa lagu rafciyaa marka la rafcinayo marka la nasbinayana nuuntaasaa la xadfaa oo la jaraa marka la jasminayana isla nuuntaasaa la xadfaa oo la jaraa icraabku waa kaa xaalatu rafci nuunkaa la daynaya xaalatu nasbi iyo xaalatu ljasmina nuuntaa la jaraa oo la xadfaa icraabku waa kaa marka saddexdaa icraab ee marna nuunka oo la daynayo lagu rafcinayo marna nuunkaoo la xadfo lagu nasbiyo marna nuunkaoo la jaro oo la xadfo lagu jasminayo tusaalayaashoodii ayaa mashaayikhdu inoogu qoreenoo saddex qeybood bay inoo qoreen aynu macnay noogu horeyn alcaamilaani labadii shaqaalaha ahaa yashtagilaani way shaqaynayaan waa laba aad ka sheekeynayso antumaa labadiinanow tashtagilaani waad shaqaynaysaan waa laba aada la hadlaysa adigu alcumaalu shaqaalayaashii yashtagiluuna way shaqaynayaan waa shaqaalo badan oo aada ka sheekeynayso antum idinku tashtagiluuna waad shaqaynaysaan waa shaqaalo badan oo aada la hadlayso anti gabadh yahay adigi anti gabadh yahay adigu tashtagiliina waad shaqaynaysaa xaalkaa kalena waa uun waxa weeyaan isla tusaalihii oo marna naasib la raaciyey marna jaazim la raaciyey lan yashtagilaa ma shaqaynayaan lan tashtagilaa labadiinu ma shaqaynaysaan lan yashtagiluu kuwii badnaa ma shaqaynayaan
lan tashtagiluu idinku ma shaqaynaysaan lan tashtagilii adigu gabadh yahay ma shaqaynaysid qaybta dambana lam yashtagilaa may shaqayn lam tashtagilaa labadiinu maydaan shaqayn lam yashtagiluu kuwii badnaa may shaqayn lam tashtagiluu idinku maydaan shaqayn lam tashtagilii gabadh yahay maad shaqayn nacam tusaalayaasha qeybta hore waa fi afcaalu khamsihi oo marfuuca alcaamilaani yashtagilaani antuma tashtagilaani alcumaalu yashtagiluuna antum tashtagiluuna anti tashtagiliina tusaalaha qeybtaa hore yashtagilaan iyo tashtagilaan yashtagiluun iyo tashtagiluun tashtagiliin waa maxayna waa afcaalu khamsihi oo marfuuca oo maxaa lagu rafciyey thubuut annuun nuunkaa meesha yaala ee noo muuqda ayaa lagu rafciyey waadix maaha marka waa ficil mudaaric marfuuc shantaa xababa wa calaamatu rafcihi thubuut nnuun shantooduba wa calaamatu rafcihi thubuut nnuun maxaad raacinaysaa marka liannahu min alafcaal alkhamsa icraabkoodu waa inta way siman yihiin liannahu min alafcaal alkhamsa waxaa intaa u raacaya labada hore yashtagilaani iyo tashtagilaani walif alifta ama alif lithnain aliftaa labada sheegaysaa waa damiirun fi maxali rafci faacil yashtagiluun iyo tashtagiluun wawdaasina waa waaw ljamaaca damiirun fi maxali rafci faacil tashtagiliin ya-daasina wa yaa mukhaataba damiirun fi maxali rafci faacil soo ma aragtaan alifta wawda ya-duna waa faacilkii waa damiir faacilka meeshiisii yaala lan yashtagilaa iyo lan tashtagilaa iyo lan yashtagiluu iyo lan tashtagiluu iyo lan tashtagilii tusaalayaasha qeybta labaadna lantu waa xarfu nasbiya waa xarfu nasbin waa xaraf nasbiya markaa ficilka mudaaricii ka dambeeya maxaad leedahay shanta qeybood shanta midhba yashtagilaa tashtagilaa yashtagiluu tashtagiluu tashtagilii maxaad leedahay ficilun mudaaricun mansuubun wa calaamatu nasbihi xadfu nnuun liannahu min alafcaal alkhamsa haddii la nasbinayo xadfu nuun baa lagu nasbiya linaasibaa ka horeeya qeybta saddexaadna lam yashtagilaa lam tashtagilaa lam yashtagiluu lam tashtagiluu lam tashtagilii lamtu waa xarfu nafyin wa jazmin waa xarf jaazima ficilka mudaaricii ka dambeeya maxaad leedahay ficlu mudaaricun majzuum wa calaamatu jazmihi xadfu nnuun liannahu min alafcaal alkhamsa waadix waayahay maadaamo nuun oo la gooyo lagu nasbinayo isla nuun oo la gooyana lagu jasminayo maxaan ku garanayaa maanta miyaa la nasbiyey mise waa la jasmiyey waxaynu ku garan waxa ka horeeya wax waa nasbiya hadduu yahayna waa la nasbiyey sida lan hadduu yahay wax jasmiyana waa la jasmiyey sida lam soo waadix maaha alqawaacid qaacidooyinka fiiri alafcaalu lkhamsa afcaalu khamsuhu hiya waxa weeye kulu mudaaricin mudaaric kastoo itasalat bihi ay la xidhiidho alifu thnayni aliftii labada sheegaysay aw waawu jamaacatin ama wowdii jamac sheegaysay aw yaa-u mukhaatabatin ama ya-dii gabadh lagula hadlayey ficil kastoo mudaarico intaa lagu daba dhajiyo ayaa maxaa la yidhaahdaa alafcaal alkhamsa la yidhahdaa magac labaadna alamhilatu alkhamsatu baa tusaalayaashii shanta ahaa waxaa laga wadaa ficil kastoo mudaaric yaa oo lagu daba dhajiyo saddexdaas qaababkuu ku imanaya marka la fiiriyo shan qaabun buu noqonayaa shantaa qaabun buu ku yimaadaa haddii aliful ithnain ama waaw ljamaaca ama yaa mukhaadaba lagu daba dhajiyo shan qaab buu ku yimaadaa haddii aliful ithnain lagu daba dhajiyo laba qaab buu ku iman haddii waaw ljamaaca lagu daba dhajiyana laba qaab buu ku iman haddii yaa almukhaadaba lagu daba dhajiyana hal qaab buu ku iman isku dar markaa
شن الأفعال خمسة سلولي مقع لبعضنا الأمثلة الخمسة سلولي وهدي ألف لقد بدأ شيء وين شايقناه لبقى أبوكو إيمان يو مريء اللقب بلعبه يمرتع اللقب بلعبه يشتغلان تشتغلان هدي واو الجماعة اللقب بدأ شيء ولا بقى مريء أكو بلعبه يمرتع اللقب بلعبه يشتغلون تشتغلون هدي ياو المخاطب اللقب بدأ شيء هل قابوكو إيمانه تأبى اللقب بلعبه تشتغلين واضح ما الأفعال الخمسة أفعال الخمسة أفعال شنطة أما الأمثلة الخمسة ترفع وحل الغرفعية بثبوت النون نون سجنان شهيد أيا الغرفعية نون للسوغيو أو للدينيو أيا الغرفعين أفعال وحويان خمسة يشتغلان تشتغلان يشتغلون تشتغلون تشتغلين نون تسال الدينية وتنصب وحال لغو نصب أو تجزم لغو جزمينيا بحذفها نون تاسو لحذفيو نون لحذفينا واللغو نصب أو اللغو جزمين والله بدا قوار بمركا لنصبيو يمركا لجزميو ويشتغلا تشتغلا يشتغلوا تشتغلوا تشتغلي وسيدا نون با لغو نصب نون لغويه با لغو نصب نون لغويه با لغو جزمين ومحي كو كلا غران ما انت وا تن نونتي لغويه بيا لا نصبي بس ولا جزميه waxayna ku garan maxay caamilka ka horeeya haduu yahay caamil raba oo doonaya in wax la nasbiyana maxaan leenahay wala nasbiyay lan yashtaghila oo kale lan أن إذن كي هدي نواسبتي لغا هرمريو هدي جوازمتي واح كميدا لغا هرمريانا مركان ولا جزميي لم يا لما يا إن جوازمتي هدي لغا هرمريو وحلينا هاي ولا جزميي صادح ما نعم بقى تعين كاسيا أيا لغو قرانيا ميا لنسبيي مسوال جزميي فعل كان أفعال خمسة نون كيسي لحذفي تعين كاسية أيانو كو قراندونا تمرينات أي أمريكا كوحيقة تمرينات كيكا كشغين دونو ومهم قفكو هاسكو دايين واغريو اسلا مركانو كشغيو وحن راعينا ناون مركا ثبوت النون لغو رفعيو ثبوت النون كاسي وحو نائب كيهي ضمه محون نائب كيهي ضمه مركا حذف النون لغو نسبينا حذف النون كاسي وحو كيهي نائب محي فتحه وح لغو نسبينيه مركا لغو جزميو حذف النون كاسي محون نائب كيهي سكونتي اللي علامات كإعراب كأسل كأهي وإن وح لغو رفعية ضمه يين وح لغو نسبيو فتحه يين وح لغو جزميو سكونتا وحي أسماء لجرينا لغو جرو أما لغو خفضيو كسره كوا سا أسرع أمهات الإعراب وكوا وحي انت أنا هين وحويا والنائب مركا الله ده يشتغلاني أما تشتغلاني يشتغلون تشتغلين وفعل مضارع مرفوعة وعلامة رفعه ثبوت النون مركا الله ده ثبوت النون كاسمحنا يبكي هاي ضمه وعلامة رفعه ثبوت النون نيابة عن الضمة حالة نصبها يجزمها نصبها وعلامة نصبه حذف النون نيابة عن النصب نيابة عن الفتحة جزمها وعلامة جزمه حذف النون نيابة عن السكون نعم درس حقا waxay mashaayikhu yiraahdeen taqsiimul ismiga qaybintiisa ismiga qaybintiisa ila mufrad loo qaybinayo wa muthanna ya muthanna wa jam'in ya jam' ficilki oo loo ismiga oo loo qaybiyo saddexda qaybood ayaa markaa la inoo sheegaya mid mufrada mid muthanna iyo mid jamco waa iska 10 waxa weeyaan iska fudud kale wax weyn ma aha magacu
hadduu tilmaamo shay keliyaata mufrad baa la yidhaahdaa. magacu laba shay hadduu tilmaamona maxaa la yidhaahdaa muthanna. magacu laba ka badan hadduu sheego saddex iyo wixii kasii badan waa laba wixii ka badan saddex bay ka bilaabmaysaa iyo wixii kasii badan markaana jamac baa la yidhahdaa. maxaa la yidhahdaa jamac. muthannaha waa wixii laba sheegaye waa mufradkiiyo xagga dambe lagaga daray alif iyo nuun ama lagaga daray ya iyo nuun. alif iyo nuun baa lagu daraa ama ya iyo nuun ayaa lagu daraa muthanna. mufradkiiyo intaa lagu daray weeyaan markaasuu muthanna noqonaya. jamacuna qeybuu leeyahay wuu soo socdaa insha allah qeybihiis waa imanayaan. alamhila taciba alcaamilu caamilkiiyo shaqaalihii waa daalay. alcaamil waa magac. alcaamil waa magac waana magac wasfiyo sifaat tilmaama waana hal qof ayuu sheegayaa idan waa ismi mufrad ah. xadara almuhandisu kii muhandiska injineerka ahaa waa uu yimid. almuhandis waa magac waana magac wasfiyo sifaat waa hal qof waa magacaa mufradka. naadaytu lbaa'ica waxaan u dhawaaqay waxa weeyaan kii wax iibinayay. albaaci waa hal qof wax iibinaya waa magac mufrad ah. athnaytu cala almuhadabati waxaan amaanay cala almuhadabati inantii edabta lahayd. waa hal inan hal gabadh oo edab leh waa magac mufrad ah. markaa magaca mufradka muxuu noqonayaa muhanana wuu noqon karaa magaca mufradka ahi muanathna wuu noqon karaa dhadig mudakarna wuu noqon karaa lab. sidan juskii koowaad soo dhiganayna kelmadda waa tii loo qeybin jiray ismun ficlun xarfan soo ma ahayn. ismku muxuu ahaa ism maxaa lo odhan jiray kulu lafdin yusamaa bihi insaan aw xayawaan aw nabaat aw jamaad aw ayu shayin aakhar kaasaa ismi ahaa. haddaba kaasi hal shay marka uu tilmaamayo waa magac mufrad ah. marka hadda hal qof oo insaana hal shay oo insaana hal shay oo xayawaana hal shay oo nabaat ah hal shay oo jamaada waa magac oo mufrad ah. mar hadduu hal shay sheegay wuxuu doono shaygaasi ha ahaadee. waay taciba alcaamilaan labadii shaqaalo way daaleen. xadara almuhandisaan labadii injineer way yimaadeen. naadaytu lbaayicayn labadii wax iibsanayay baan u dhawaaqay. athnaytu waxaan amaanay cala almuhadabatayn labadii gabdhood edabta lahaa. alcaamilaan almuhandisaan albaayicayn almuhadabatayn waa magacyo laba sheegaya marka waa ismi muthanna. alcaamilaan iyo almuhandisaan waa magicii oo muthanaa oo laba sheegayo xaggii dambe waxaa lagaga daray un alif iyo nuun. caamil markuu ahaa maxaa la yidhi caamilaan alif iyo nuun ku dar. muhandis almuhandis waa mufradkii maxaa lagu daray alif iyo nuun. labada dambena maxaa lagu daray ya iyo nuun. naadaytu albaayicayn albaa'ic buu ahaa mufradkii ya iyo nuun baa lagu daray. athnaytu cala almuhadabatayn almuhadaba ayay ahayd maxaa lagu daray ya iyo nuun. markaa muhanuhu waa mufradkiioo lagu daray alif iyo nuun ama ya iyo nuun ayaa lagu daray. oo waahayma waxaan odhan doonaa taciba alcaamilaani oo alif iyo nuun baan ku daraa mise taciba alcaamilayni oo ya iyo nuun baan ku daraa. taasi icraabkay ku xidhan tahay. kelmadan icraabkeedu halkuu yaala ma marfuucba ma mansuubba ma majruurba icraabkuna wuu imanaya insha allah. muhanaha icraabkiisu waa uu imanaya markan la raacinayo alif iyo nuunta iyo markan la raacinayo ya iyo nuunta. icraabkii weeyaane way soo socotaa icraabka intaa ku gaadhina laakiin guud ahaan muhanuhu waa kaa waa mufradkii oo lagu daray alif iyo nuun ama ya iyo nuun. laba shayna waa uu tilmaamaya. taciba alcumaalu shaqaalayaashii way daaleen. xadara almuhandisuuna injineeradii way yimaadeen. naadaytu lbaayiciina kuwii wax iibinayay baan u dhawaaqay. athnaytu cala almuhadabaati kuwii edabta lahaa ayaan amaanay. alcumaal waa ismi waana jamac
laba ka badan buu sheegayaa. almuhandisuun waa magac waana jamac, laba ka badan buu sheegayaa. albaayiciin waa magac waana jamac, laba ka badan buu sheegayaa. almuhadabaat waa magac waana jamac oo laba ka badan buu sheegayaa. alcumaalkuna waa jamcii tagsiirka, jamcu tagsiir. almuhandisuun iyo albaayiciinna waa jamcii mudakaru saalimo, marna waxaa lagu daraa wow iyo nuun, marna ya iyo nuun, wayn gaadhinaya icraabka. almuhadabaatna waa jamcu almuanath asaalim oo isaga alif iyo ta baa lagu daraa, wayn gaadhina waxaas oo dhan insha allah jamac iyo qeybihiisa icraabkooda waxa uu noqonayo wayn gaadhina. hadda waxa uu sheegayaa uun wixii magac la yidhaahdo, hadduu hal shay sheegana waa mufrad, hadduu laba sheegana waa muthana, laba ka badan hadduu sheegana waa jamac. intaasaa laga rabaa inaad fahanto oo wax iska sahal ah. alqaacida alismu ismigu yanqasimu wuxuu u qeybsamaa ismigu halaathata aqsaam, saddex qaybood, ay ilaa halaathati aqsaam, saddex qaybood buu u qeybsamaa. mufradun waa muthana wa jamcun, ay alawalu ka koobaad, mufradun waa mufrad, wa muthana ay wathani ka labaadna muthana waa muthanihi, wa jamcun ay wathaalithu ka saddexaadna jamcun waa jamc. waa mufrad iyo muthana iyo jamc, ismigu saddexaad soo qaybsamaa. falmufradu mufradku maa kii weeyi dalla tilmaamo calaa shayin waaxidin shay kaliyaata, hal shay wixii tilmaamo maxaa la idhahdaa mufrad. walmuthana muthanuhuna maa dalla waa wixii tilmaamo calaa shay-ayni laba shay, ithnayni oo laba wixii tilmaama, biziyaadati alifin wa nuunin, iyadoo alif iyo nuun lagu ziyaadinayo, waa xaaladii rafcehe. aw yaa-in wa nuunin, ama ya iyo nuun baa lagu ziyaadinayaa, waa xaaladii nasbaha iyo jarke. wayn dhigan doonaa insha allah icraabka. fii aakhirihi aakhirkiisa waxaa lagu ziyaadin doonaa alif iyo nuun ama ya iyo nuun, kaana muthana la yidhahda. waljamcu jamcuna maa kii weeyi dalla tilmaamo calaa akthara wax ka badan min athnayni laba wixii ka badan ayaa waxaa la yidhaahdaa jamac. waljamcu maa dalla calaa akthara min ithnayni, laba wixii ka badan wixii tilmaama ayaa jamac la yidhaahdaa. nacam, marka intaasina waa uun de casharkaa koobanoo muhanihii iyo mufradkii iyo jamcii kala saar baa lagu leeyahay. tamaariinta aqriya, isku daya inaad ka shaqaysaan. taqsiimu ljamci, jamca qaybihiisa, jamcii oo la qaybinayo ayaa halkan lagu sheegayaayo waa inagii hadda ishaaraynay. taciba alcumaalu iyo xadara almuhandisuun iyo naadaytu albaayiciin iyo athnaytu cala almuhadabaat iyo jamca qaybihiisa in halkaa laga dheeganayo, kii mudakaru saalim, jamcu tagsiirkii iyo jamcu almuanath asaalim. markaa jamca qaybihiisi baa laynoo sheegayaaba. jamca waa la qaybiyaa, saddex qaybood baa loo qaybiyaa. waxaa loo qaybiyaa saddex qaybood: jamcu tagsiir iyo jamcu mudakar asaalim iyo jamcu muanath asaalim. intaasaa loo qaybiyaa. jamcu tagsiir waxaa la yidhaahdaa wixii horta jamac mar haddii la yidhi waa laba wax ka badan, intaas ka fahan mar walba. saddexda qaybood ee jamcuda laba wixii ka badan bay sheegayaan. markaa jamcu tagsiirku waa wax jamac sheegay laba ka badan, mufradka siduu ahaana waxbaa laga bedelay, qaabkii mufradka waxbaa laga bedelay oo xarakaadkiiba isbedelay, ama waxbaa kusoo kordhay meesha xuruuf, ama waxbaa la gooyey. kaa jamcu tagsiir baa la yidhahdaa. jamcu mudakaru saalimna isnada laba ka badan buu sheegi, laakiin mufradkiisii oo sidiisii u yaala unbaa xagga dambe waxaa lagu darayaa wow iyo nuun xilliga rafcaha, ama ya iyo nuun xilliga nasbaha iyo jarka. mufradkii laakiin isma bedelayo. jamcu lmuanathu saalimna isnade laba ka badan buu sheegayaa, oo isagoo sidiisii u yaala unbaa alif iyo ta xagga dambe lagaga ziyaadinaya. maxaa lagu darayaa? alif iyo ta baa lagu darayaa. tusaalayaashan ku fahmanaa. xadara waxaa yimid alrijaalu, raggii baa yimid. qara'tu waxaan aqriyey alkutuba, kutubtii. mashaytu waxaan socday fi duruqi, wadada dhexdeeda. faaza almujiduuna, faaza waxaa guulaystay almujiduuna, kuwii dadaalay. akramtu waxaan karaameeyey alqaadimiina, kuwii yimid.
radiitu waxaan raali ka noqday can ilkaatibiina kuwii wax qoray faazat waxaa guulaystay almujidaatu hablihii dadaalay akramtu waxaan karaameeyey alqaadimaati hablihii yimid radiitu waxaan raali ka noqday can ilkaatibaati hablihii wax qoray nacam tusaalayaasha qeybta hore alrijaalu alkutubu alduruqu waa jamac waa laba ka badan marka waa jamac mar haddii wixii laba ka badan yihiin ardayga waa jamac waayahay jamacaasi waa jamac nooceeya alrijaalu bal hadda mufradkiisii dib ugu noqo alrijaal waa ragee mufradku muxuu ahaa rajulun soo maaha rajulun ayuu ahaa rajulun markaynu jamac ka dhignay maxaa la yihi rijaalun haddaba rajulun qaabkeedu way isbedeshay awal rajulun ra-du maxay wadatay fatxe laakiin xilliga jamaca rijaalun ra-dii maxaa la siiyey kasre rajulun jiimka muxuu watay dame xilliga mufradka rijaalun jiimkii maxaa la saaray fatxa rajulun jiimka iyo laamka way isku xigeen rijaalun jiimkii iyo laamkii alif baa lagu soo siyaadiyey dheeraada idan mufradkii muu isbedelay markii jamac laga dhigay mise ismuu bedelin ya isbedel baa ku imid soo ma aragtid waa la jajabiyey saasaa loo jeedaa jamacan alrijaalu jamcu tagsiir baa la idhaahdaayo bimacnaa mufradkii baa jajabin lagu sameeyey jajabin maxaad ka wadaa yacni qaabkii mufradka isbedelay ama xarakadii ha isbedesho ama xaraf dheeraad ah ha lagu soo daro dhexdiisa ama xaraf ha la gooyo waa jamcu tagsiir wixii noocaasa alkutub waa kutubtii alkutub waa kutubtii mufradku muxuu ahaa ardayo kitaab soo maha kitaabun fiiri kitaabun ta'da maxaa ku xigay alif kitaabun waa xilliga mufradka jamac markii laga dhigay kutubun ta'diiyo baaba isku xigta alifkii mee waa la gooyey xarakaadkuna way isbedeleen idan waa maxay jamcu tagsiir mar haddii mufradka qaabkiisi uu isbedelay waa jamcu tagsiir aduruqna aduruq waa wadooyinkii jidadkii mufradku waa maxayna ariiqun buu ahaa ariiqun ra-da iyo qaafka maxaa udhexeeyey ya ariiqun xilliga mufradka jamcii maxaa la yidhi duruqun ya-dii baa la gooyey xarakaadkii waad aragtaa isbedel baa qaarkood ku yimid idan muxuu noqonayaa kaasi jamcu tagsiir wixii sidaa loo jajabiyaa magacu ha noqdo magac nin magacu ha noqdo magac dumar magacani ha ahaado wax iska sifo iyo tilmaama oo nin leeyahay ama dumar leeyihiin wixiisaa loo jajabiyo waxaa la yidhahdaa jamcu atagsiir baa la yidhahdaa bal qeybta labaad fiiriya faaza almujiduuna almujiduun waa kuwii dadaalay waa magac sifeeye tilmaama mufradkiisi waa maxayna mufradkiisi waxa weeye almujiddu mujiddu weeyaan mufradku waa mujiddun buu dee ahaayo tawiin buu watay mujiddun markii la jamiciyey isagoo sidiisii u yaala unbaa wow iyo nuun xaggii dambe lagaga daray almujiddu almujidduun baa la yidhi ama almujiddiin baa la yidhi mufradkii wax isbedelaa muu ku imid mise kumuu iman almujiddu wow iyo nuunun ku dar almujidduun ama ya iyo nuun almujiddiin isbedel kumuu iman mufradkii laakiin maxaa lagu daray un wow iyo nuun almujid waa sideedii wow iyo nuun dheeraada un baa lagu daray jamcu tagsiirka isbedel baa ku imanayay dhexda ayaa wax lagaga soo darayay ama dhexdaa wax la xadfayey ama xarakaadkaa isbedelayay kan almujiddu oo sidiisii u yaala waxba aan lagu dhex darin waxna aan laga dhimin xarakana aan la bedelin unbaa wow iyo nuun ama ya iyo nuun xagga dambe lagaga sii daraya alqaadim waa hal qof halkii qof ay yimid alqaadim bal jamac ka dhig wow iyo nuun ku dar alqaadimuun ama ya iyo nuun alqaadimiin icraabkay taasi ku xidhan tahay alkaatib waa hal qof oo wax qoray bal jamac ka dhig wow iyo nuun ku dar alkaatibuun ama alkaatibiin
واو يا نون يا نون waxay ku kala duwan xagga iraabka oo nigan doona insha Allah soo maragtaan dakaas bido kuma iman marka waa magac jamac ah oo laba ka badan sheegaya oo jamac lagaga dhigay waaw ya nuun lagu daray ama ya nuun lagu daray mufradkiisina uu badbaaday ragna sheegaya jamcu almudhakkar as-salim baa la yiraahdaa jamcu waa jamco de laba ka badan buu sheegay almudhakkar waa magac lab sheegaya as-salim uu badbaado lama jajabin uu badbaado lama jajabin ma la fahmay salaha qayb saddexaad u kaalay faazat almujiddat almujiddu mufradkii weeyaan hadday gabadh tahay dee ta'ba lagu dari lahaa gabadhnimada sheegaysa markii la doonay in magacan laga dhigo dumar badan oo dadaalay almujiddu oo sidiisiiya unbaa alif iyo ta xagga dambe lagaga daraya almujiddaat wada ta'ba lagu daraa hal gabadh markayto almujiddatu bay noqon lahayd laakiin markaan jamac dumaraa ka dhigano ta keliyaha ku darin alif iyo ta ku dar almujiddaat alqaadim waa halka qof ay yimid hadday gabadh tahay alqaadimatu bay noqon lahayd laakiin jamac dumaraa ka dhig alif iyo ta ku dar oo maxay dheh alqaadimaat alkaatib waa hal qof oo yimid oo markuu nin yahay markay gabadh tahayna alkaatibatu laakiin jamac bal ka dhig dumar oo yimid alkaatib alif iyo ta on ku dar maxay noqonaysaa alkaatibaatu maxaa magacii imika alkaatibaat alqaadimaat almujiddaat waa magac jamac oo laba ka badan sheegaya waana magac dumar oo jamacan dee dumar buu sheegaya markaa sidee loo jamciyey markii magacan dumar laga dhigayay waxaa loo jamciyey in lagu daray alif iyo ta lagu daray kaa maxaa la yidhahdaa jamcu de waa jamac oo laba ka badan buu sheegay almu'anath de waa jamac dhadig assaalim oo badbaado mufradkii waxba lagama bedelin soo ma aragtaan waa mu'anath assaalim iyo mudhakkar assaalim laakiin tagsiirku isagu muxuu ahaa qaabkiisiiba waa la jajabiyey kaa la jajabiyey ama magac nin ha noqdo ama magac gabadh ha noqdo oo maxaa la odhan karaa waxaa la odhan karaa jaa-at alhunuudu hindooyinkii baa yimid magaca hindun waa gabadh bal jamac ka dhig alhunuud baa lagu jamciyaa hindooyinkii baa yimid hindun oo lagu jamciyey alhunuud waa jamcu maxay jamcu taksiir alhindaat haddii lagu jamciyana waa jamcu almu'anath assaalim markaa labada jamac saa kala fahm hindun oo hunuudun lagu jamciyey waa jamcu taksiir waa jamcu taksiir dumar sheegaya laakiin waa taksiir haddii hindaat lagu jamciyana waa jamcu almu'anath assaalim soo waadix maaha nacam taasina waa jamca qaybihiisii oo saddexa bal hadda fiiri alqaacida qawaacidda aynu eegno yanqasimu ljamcu jamcu wuxuu u qeybsamaa ardayow halaathata aqsaam saddex qaybood buu u qeybsamaa jamcu taksiirin axaduhaa qaybaha mideed jamcu taksiirin waa jamcu taksiir wa jamcu mudakarin saalimun wathaani ka labaadna jamcu mudakarin saalimun waa jamac lab ah oo badbaaday jamcu taksiir waa jamac la jajabiyey wa jamcu mudakarin saalimun iyo jamac lab oo badbaaday wa jamcu mu'anathin saalimun iyo jamac dhadig oo badbaaday muxuu ka badbaaday labadan dambe maxay ka badbaadeen taksiirkii bay ka badbaadeen fa jamcu taksiir jamcu taksiirku maa dalla waa wixii tilmaama calaa akthara wax ka badan min ithnayni laba bitagayuri suurati mufradihi ay maca tagayur iyadoo lala qabo inuu isbedelayo ama bitagayuri isagoo ku dheehan isbedel ku dhacaya suurati mufradihi mufradkiisa qaabkiisii mufradka qaabkiisi inuu isbedelaya laba ka badanna uu sheegaya rag iyo dumarkuu doona ha sheego waa jamcu taksiir wa jamcu lmudakari saalimi jamca mudakaru saalimna maa dalla waa wixii tilmaama calaa akthara min ithnayni laba ka badan ayuu tilmaamaya biziyaadati waawin wa nuunin iyadoo xagga dambe lagaga darayo wow iyo nuun
أو ياء ونون أما ياء نون في آخره آخر كيسة والدواوي النون أما ياء نون كلمة اللي قدر يعني محوك حرنا هنري إعراب كيسة وإنه إن شاء الله تعالى. وجمع المؤنث سالم جمع مؤنث سالمنا ما دل وحي تلمام على أكثر وحكبضا من اثنين لبا وحي كبضا وحي تلمام أيا ليلى هذا جمع المؤنث السالم بزيادة ألف يلو ألف لغو زيادين أيو وألف لغو ضريو وتاء يتاء في آخره آخر كيسة ألف يتاء بآخر كيسة لغو ضريو مركا جمع مذكر سالم جمع المؤنث سالم مثناها أيو انت بإعراب كودي هو صوضع وانت بإعراب كودي وإنو إيمانيا إن شاء الله تعالى لكن هذا وحييهين من بالينو شيغي ولينا فهنسيه. جمع التكسير كإعراب كيسو ومحينا جمع التكسير كإعراب كيسو isaga horaan soo dhiganay jamcu taksiirka i'raabkiisu waxa weeyaan jamcu taksiirka i'raabkiisu waa in lagu rafciyo dhamme sida ismiga mufradka loo i'raabaya in lagu rafciyo dhamme jaa ar-rijalu oo lagu nasbiyo fatha ra'aytu ar-rijala marartu bir-rijali وسيدي مفرد كان الله إعرابيا ضم على الغرف عين فتح على الغرف نصب كسرنا ولا جري وهدو ياهي منصرف هدو ياهي ما لا ينصرفنا فتح على الغرف جري نائب كأه وحويان كسره سجل إعراب كيس واعينك كون كلا إعراب كودنا وإنه إيمانيا إن شاء الله تعالى هل كان مركا تقسيم الجمعي أي إنه قدن تمرينات كائنات أغرسان وإذا نفعيا إنك وقت جاي نوير إن نقرنه بركة تمرين كيان لا يرسل هلا أقريه قف بقى أنت أو فهمه وحيكون أنت هاي أنت أو تمرينك أو كشقة ينكره هذا التمرين كان لا شقة ومهم. إعراب المثنى والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم بالله التوفيق.